waxaa maanta magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka diyaaraduhu ka haadaan ee Jomo Kenyatta lagu soo dhoweeyey wafdi ballaaran oo erga oo ka qayb geli doona shirweynaha ballaaran ee beelaha midnimada direed ee loo soo gaabiyo MMD kaasoo ka dhici doona magaalada Nairobi. wafdigan ballaaran ee ka soo kici timay magaaladaasi Muqdisho waxaa hogaaminayay Suldaan Axmed Maxamed Olhaye Suldaan Salmaan iyadoo ay ku wehelinayeen gudoomiyaha guddida saxaafadda ee ururka midnimada beelaha direed Cabdalle Axmed Cabdi Cabdalle Faati iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhinaca siyaasadda ahna gudoomiyaha beesha Biyamaal Axmed Cumar Cali Cumareyn. wafdigan ballaaran markii ay halkaasi soo gaadheen waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey guddida golaha dhexe siyaasiyiin waxgarad waayeel bahda dhaqanka iyo dadweyne aad u tiro badan iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay heesaha dhaqanka iyadoo lululayay calanka Somaliland oo aad u dheer isla markaana shucuurtoodu dadkan ay ka muuqatay siday uga go'an tahay garab istaagga jamhuuriyadda Somaliland. intaasi kadib waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey gudoomiye ku-xigeenka madasha midnimada beelaha direed ee MMD Professor Dr. Cabdisalaan Yuusuf Axmed oo isagu ku soo dhoweeyey garoonka Jomo Kenyatta isla markaana uga mahadnaqay wafdigan ufuudda ah ee ka qayb geli doonta shirweynaha madasha midnimada beelaha direed ee ka dhici doona Nairobi. kelmad haddii aan leedmo ku kooban mahadnaq kaliya inaan ka jeediyo golahan martidii dabadeed ilaahay baa mahad leh. waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa sugitaan dheer oo maanta kaliya ma ahayn iyo shalay muddaba aan naawilaynay kadib inay ergadii bilahan dambe ugu horreysay ee ina soo gaadha ee ka hadlaysa danaha dadka iyo deegaamada direed si nabad ay noogu yimaadeen inalana joogi doonaan maalmaha soo socda iyadoo kuwo kalena ay soo raaci doonaan. waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca hoggaanka madasha midnimada direed MMD intaba ugu mahadnaqo dhalinyaro weynta direed ee dalkan Kenya ee tirada yari hadda halkan ka fadhiyaan oo iyaga laftooda aan ahay ninka u qaabilsan isku duwidda arrimahooda. waxqabadkoodu meel aad iyo aad u wacan ayuu hadda noo marayaa. ilaahay idankiina waxaan rajaynayaa inaad ku taariikh yeelan doontaan dhammaystiridda waxyaabaha naga dhiman. waxaan rabaa anigoo sidaasi la mida ku hadlaya codka dhammaan odayaasha direed waxaan rabaa dhammaanteen codkeenna sidaasi la mida inaan ku taageero oo ku soo dhoweeyo magaca dadka direed ee dalkan Kenya shirweynaha saddexaad ee direed oo haddii aan la idmo qabsoomi doona bilaha inagu soo socda si weyn oo weynna aan shirka u soo dhoweyno isla markaana aan magaca dadka direed ee Kenya ku ballan qaado iyo kaygaba inaan diyaar u nahay naf iyo maalba inaan la garab taagannahay madasha midnimada direed. dhammaan soo dhowaada waad mahadsantihiin. waxaan halkan ku soo dhowaynaynaa madasha midnimada direed ee dhaqankii hogaaminayay Suldaan Salmaan gudoomiye Cumar Cali iyo Cabdulqaadir Cabdalla Faatax. soo dhowaada baan idin leenahay insha Allah taala. waqti weyn lama hayo insha Allah taala. soo dhowaada tiqaas u soo dhaweynaya adeerkii labaad baa meesha fadhiya boqortooyada Biimaal aad baan ku leeyahay adeer macaan soo dhawow walaalkay macaan soo dhawow adigana af Soomaaliga badan hadaan qaldanaya lay qaban qalbiga idinka wada jecelnahay dhalinyarta direed meel walbay joogaan ama hanala joogaan ama ha maqnaadaan in la isku xirnaado waa dhaqan odayadeena laga soo gaaray inaan meeshii ka sii wadna kalgacayl lahankeena yuusa dhaafin ree hebel baana hankeena ha gaara. Suldaan Axmed Maxamed Olhaye Suldaan Salmaan ayaa isaguna uga mahadnaqay maamulka mas'uuliyiinta waxgaradka aqoon-yahanka madasha midnimada beelaha direed iyo dadweyne aad u tiro badan oo si diiran halkaasi ugu soo dhoweeyey. saddex kaama hadhaan baa la yidhi waxaa la yidhi nabsi aad gashay kaama hadho nasiibkaaguna kaama hadho nasabkaaguna kaama hadho. haddaad xitaa waxtar yeelan weydo nasabkaagaad eedi doontaa kaa aadna ogeyn baad u dhiman doontaa. taas horta waa inaad garataan. umanku marka laga sheekaynaya laleeyahay maxay ku toosaan ama ku tanaadaanna waa inaad garataan waxay ku tanaadaanna waxaa la yidhi saddex bay ummadi ku tanaadaa. ummadi waxay ku tanaadaa baa la yidhi
hoo waalid ama xabaalaha ku jiro ama adduunka guradiisa kayo halkan ugu nimid qoomiyadda qiimaha leynu ka soo jeedno waxa weeyaan tu wada tashi oo haddii alla yidhaaho saamayn badanna yeelan doonto haddii alla yidhaah maalmaha aanu halkan joogno oo wufuud kalena iman doonto insha allahu tacaala waxaynu insha allahu tacaala la wadaagi doonaa saxaafadda gebagabadeeda go'aamada iyo wixii ka soo baxa oon isleeyahay insha allahu tacaala qowmiyaddaynu ka soo jeedno iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba wax anfici doona oo inagana inoo qiimo yeelan doona ayaa ka soo bixi doona kulankaynu maanta halkaa iskugu nimid waxaan qabaa maalmahan ugu dambeeyey ama sanadkan ugu dambeeyey haddii aad tihiin NFD ama caasimadda aynu caawa joogno dadkiina ku nool wax badan baa ku dul dhacayay tii waxay qasabtay inayna kalifaan oo midnimadeennu inay muqadas tahay waynu ognahay in aynu layna dhaqdhaqaajiyo oo dad maanta meel kastoo aynu joogno aynu kaga xoog badannahay waxaan u nimid walaalaheena u nimid aadaan u faraxsanahay waxaan rajaynaynaa socodkeenan inuu noqdo socod qeyr qaba inuu noqdo kii mideen lahaa beeshan direed inuu noqdo waxaan ognahay inaan nahay geeska Afrika beesha ugu weyn inaan nahay haddana awoodda aan leenahay in badan oo annaga naga mid ah inay dhiban tahay waxaan rajaynayaa maxaa la yidhaahdaa jiilkan maanta cusub ee bilaabay inay ummaddan isu keenaan isu raadiyaan